maanta taariikhdu ku beegan tahay 8 bishii June 2020 waxaan mar kale joognaa fagaaraha laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka oo ah fagaaraha lagu gubo qaadka iyo muqaadaraadka sharci darrada ee dalka soo galaya waa mar kale oo maanta u joogno inaan gubno qaad sharci darro ah oo dalka la soo galiyay laanta dhexe ciidanka ilaalada xeebaha ayaa soo qabtay 4 bishii June 2020 doon uu saarnaa cayim qaad ah kaas oo inaga soo warbixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo mar walba nala shaqeeya garabna taagan ciidanka booliska Soomaaliyeed qaadkaas ayaa doontii keentay waxay rahay doon kalluumaysi ah oo xoogaa doon weyn ah waxay u soo gali weysay marsada sidaas daraaddeed doomo yaryar ayaa lagu soo xamaalay oo lagu soo daabulay qaadkaas doomihii yaryaraa ayaa Maleeshiya aaga ka agdhoweyd ayay qaadkii dhaceen markii qaadkii dhaceen ayaa waxaa ka dhashay in qaadkii oo la dhacayaan ka warbixinay ciidanka ilaalada xeebaha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo markii ka warhayay isla markaana heegan ku 24 saac xeebaha si loo ilaaliyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xeebaha ku harqanaya ayaa ka war helay qaadkaas waa lagu baxay sidaas daraaddeed ayaa waxaa ka dhalatay meeshii qoladii qaadkii dhacaysay iyo ciidankii baa tacshiro isdhaafsaday si xoog ah ayaa qaadkii looga dhiciyay ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay qaad cadadiisu ay gaarayso 6 jawaan waxaan horgeynay maxkamadda awoodda u lahayd maxkamadda gobolka Banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta go'aan garsoor ayaa ka soo baxay oo qaadkaas lagu amray in la gubo maadaama uu yahay muqaadaraadka in dhawaaladba la dagaalamayay maantay ayaa ilaahay fadligiisa wuxuu noo saamaxay ama noo ogolaaday inaan maantay barxaddan ku gubno waxaan mar kale uga digaa ummadda Soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan waxyaabaha noocaan oo kaleeta ah oo ciidanku har iyo habeen ay u taagan yihiin ciribtirkooda dadka hantooda iska geliya waa uga digaynaa inay iska daayaan oo ka joogsadaan oo ka waantoobaan iyagaaba hadda khasaare isugu filan hadda kadib cidii lagu qabto waxaa la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh si ay u maraan cadaaladda iyo sharciga wuxuu ka qabo waa mahadsantiin billahi tawfiiq assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh